si kooban u qeexo cinwaanku kelmadaha uu ka kooban yahay. waxaynu nidhi qarannimada Soomaaliya iyo xiriirka caalamiga caqabadaha iyo fursadaha jira Soomaaliya u jira. Soomaaliya waynu garanaynaa waa dalka Soomaaliyeed. waxaa kala duwan Soomaali iyo Soomaaliya. haddii la yidhaahdo Soomaali waxay noqonaysaa qof kasta oo Soomaaliya meeshuu ku nool yahay. Soomaali waa ku nool Kenya, Soomaali waa ku nool Djibouti, Soomaali waa ku nool Ethiopia, Soomaali waa ku nool waayahan dambe noqday xubno ka tirsan ama muwaadiniin dalal kaleeto oo weliba madax ka ah ama aad looga yaqaano. marka kuwaas waa Soomaali, waa jinsiga Soomaalida, waa the Somali nation ama the national maxaa the ethnic waa ethnic waa ku abtirsashada dal waa Soomaali qofku meeluu jooga. waxaase jirta Soomaaliya markaan niraahno waxaan ka hadlaynaa geography xadidan dadka ku nool. waxa weeyaan waa labadii gobol oo isu tegey 1960kii oo xorriyadda qaatay, oo hadda qayb ka mid ay leedahay waxaan rabnaa inaan Soomaaliya ka go'no oo Somaliland baana la yidhaahdaa. laakiin sida hadda dunidu aqoonsan tahay, inaguna aynu hadalkeenan ku saabsan yahay, Soomaaliya waa labadaas gobol. markii Soomaalida la yiri 5 gobol baa loo qaybiyey, labadii isu yimid xorriyadda wada qaatay oo maanta loo yaqaano dowladda federaalka Soomaaliya. marka Soomaaliyada aynu ka hadlaynaa waa taas, Soomaalida maaha. intaa waa isla garanay. waxaa kaloo meesha ku jirta iyaduna qarannimo, ama haddaan afka qalaad ku niraahno sovereign ama state sovereign u imaanayna Somali state haddii afka Ingiriiska lagu sheego, ama dowlad Soomaaliya haddii afka Carabiga lagu yiraahdo, oo luqadaha Soomaalida in badanoo ka mid ay garanaysa. marka stateka ama dowladnimada Soomaaliya ama dowladnimo waxay u baahan tahay inaynu wax yar ka qeexno si aynu u ogaano oo isula fahamno, inaan wax fikrado kala duwan aynaan ka qabin waxa aynu ka hadlayno. Soomaaliya isla fahamnay inagoo dhan baa ah, waana dhulka juqraafigaas la garanayo wey, oo xuduudkaas iyo dadka ku nool xuduudkaas. stateku ama dowladdu waxay ka kooban tahay juqraafigaas hadda aan sheegnay, hadda tan Soomaaliya oo ah ilaa waqooyi ilaa koonfur juqraafiga Soomaaliya la yaqiinay. dadka ku nool oo Soomaalida ah iyo maamul ama xukuumad ay leeyihiin iyagu. ogaada xukuumad, maamul ama government waxaa la yiraahdo, iyo state ama dowlad waa kala duwan tahay. inagu inta badan dadku waa isku khaldaan, dadka aan culumta siyaasadda baran ama stateka macnihiisa aqoonin. government waxa weeye waa maamul dad meel jooga ay samaysteen si uu danahooda u ilaaliyo, waxayna dhammaystirtaa xubnaha uu ka kooban yahay dowladnimadu ka kooban tahay stateka. dowladnimadu se u jirto waa in la helaa dad ku nool juqraafi go'an oo la yaqaano oo adduunku aqoonsan yahay. dadkaas oo samaystay dowlad ama xukuumad ama maamul iyaga matala oo danahooda u fuliya, oo loo yaqaano government ama maamul.
marka governmentiga maamulku waa wax yimaado oo taga wax joogtaa maaha dowladnimadu laakiin waa joogto qofkii ama ummadii ilaahay u garto maxaa yeele ummadaha adduunka oo dhami dowlad ma laha dowladdaysan lahayna maamul iyo xukuumad ma ay laha maamul ka hooseeya kan dowlad loo yaqaan xukuumad loo yaqaano way yeelan karaan sida falastiiniyiinta oo kaleeto wax authority la yidhahdo laakiin dowlad ma ay laha adduunka dowlad waxaa jira 193 dowladood oo xubno ka ah maxaa la yidhahdaa UN-ta dadkaasaa la aqoonsan yahay dowladahaasaa la aqoonsan yahay oo ay Soomaaliya ka mid tahay qolo walibana waxay leedahay maamul iyaga u gaara dadkana tiradoodu waxay u dhaxaysaa dad gaara ilaa iyo 1 bilyan iyo 200,000 ama 300,000 400,000 China hadda ma huba numberka laakiin ilaa 1.4 baa la gaarsiiyaa waa dowladda adduunka ugu dad badan dalal dadkoodu ay dhowr kun 7,000 yihiin jasiirado Caribbean-ka ku yaala oo dowladana waa jiraan dowladnimadu waa calaamadda ummad adduunka looga yaqaano oo sharci ay ku leedahay haddii aadan dowlad lahayn adduunka kama jirtid magacaaga lama yaqaano waxa la yidhahdaa international status ama international maxaa la yidhahdaa existence ma lihid jiritaan caalamiya ma lihid dad ahaan qof waa u jiri kartaa laakiin haddaadan dowlad lahayn adduunka lagama yaqaano waxaa ka mid ah dad badan oo adduunka jira oon dowlada lahayn oo aan la aqoonsanayn waxaa ka mid ah kurdida waxaa ka mid ah falastiiniyiinta waxaa ka mid ah ummado sidaas oo kaleeta u dagaalamaya ama u halgamaya inay helaan dowlad si loo aqoonsado marka stateka waa geography waa dhul xuduud loola yaqaano dad ku nool maamul iyagu samaysteen oo maamulkaasoo ka taliya xuduudkaasoo dhan iyo dowladdaas ama xukuumaddaas maamulkaas oo la aqoonsan yahay intaasoo shuruudood waa in la helaa si ay ummadi u lahaato state u jiro ama dowlad u lahaato haddaan Soomaaliya marka state waa isla fahmnay ama dowlad waa isla fahmnay farqiga dowlad iyo xukuumad ama maamul u dhexeeyana waa isla fahmnay waan isu sheegnay in dowladnimadu ay tahay wax waara Soomaaliya dowlad ilaa intay xor ka noqotay 1960kii dowlad bay ahayd maray dowladnimadii lumisay waa jirtaa markii burburkii 1991 sida aan soo sheegay xubnaha ama tiirarka dowladnimada oo ah geography go'an dad ku nool maamul ay samaysteen oo la aqoonsan yahay oo xuduudkaas maamula inta haddaysan jirin dowladnimadii dowladnimada intaas samaysa waxaa la yidhahdaa waxay leedahay qarannimo ama sovereignty marka adduunkay la siman tahay dowladaha adduunka ayay la siman tahay ama ha yaraato ama ha weynaato sida citizenska ama muwaadiniinta dal ay u siman yihiin ayaa international maxaa la yidhahdaa systemka ay dalalka u siman yihiin si kastoo u kala dad badan yihiin u kala xoog badan yihiin xubin kasta oo ka mid a UN-ta cod bay leedahay ama state walba ama dowlad walba Soomaaliya iyo Mareykanka iyo China isku cod bay leeyihiin iyo dalal kaloo Soomaaliya ka yaroo oo kumanaan qof dadkoodu u yahay faraha lagu tirin karo isku hal cod bay leeyihiin
international systemka waa siman yihiin sinaantaas oo dowlad waliba iyadu ay dadkeeda iyo dalkeeda maamulkiisa leedahay adduunkana ula siman tahay ayaa waxaa loo yaqaanaa sovereignty ama qarannimo. qarannimadu marka nasiib baynu inagu u yeelanay inaynu 1960kii aynu dowlad qarannimo leh aynu yeelano markaynu xorriyadda qaadanay waynu iska burburinay mar way naga dunduntay laakiin kama aynaan bixin masawirkii oo adduunku way yar tahay sida qarannimo loo helaa way adag tahay dowlad qarannimo loo la aqoonsan yahay laakiin sida qarannimada lagu waayaa waa dhib badan tahay marka inkastoo inaga qarannimadeennay burburtay dowladnimadiina ka burburtay intii muddo ahayd adduunku waa noo samray oo waa laynoo hayay qarannimadeenni oo UN-ta waxaynu ku lahayn representation ama mathalaad baynu ku lahayn laakiin qarannimadaasi waa mid laynoo ku deeqay ma ahayn mid aynu mutaysanay haddii la fiiriyo qeexidda qarannimada laga yaabaa dadka qaarkiis inay hadalkaas aan leeyahay ay dhibsadaan laakiin waa muhiim inaynu ogaano waxa uu dowlad qarannimo leh ay tahay macnaheedu si aynaan mar kaleeto isaga dumin dowladnimadeena qarannimadeena aynaan u lumin oo aynaan aqoonin in markaasi markasta adduunku uu deeqsi ahaanayo oo noogu deeqi doono maxaa yeelay saan idiin sheegay si aad dowlad qarannimo leh u ahaatid waa inaad leedahay dhul jugraafiya go'an oo la yaqaano xuduud la yaqaano leh dad ku nool dadkaasoo leh xukuumad ama maamul iyagu ay samaysteen maamulkaas oo ka taliya jugraafigaas oo dhan haddii intaas midkood uu maqan yahay qarannimadaadii ugu yaraan way dhaawacan tahay xataa haddii adduunku ku aqoonsan yahay inaad qaramada midoobay aad qayb ka tahay marka Soomaaliya waa dowlad qarannimo leh nasiib wanaag oo laga yaqaano dunida UN-tana xubin ku leh adduunka la siman dalalka adduunka la siman aragti ahaan theory ahaan inkastoo dalalku ay kala awood badan yihiin marka dhabta la yidhaahdo laakiin theoretical UN-ta marka la joogo isku cod baa leeyahay laakiinse qarannimadaasi shaqay u baahan tahay oo waxay u baahan tahay si aad qarannimadaada kuugu jirto aad ummadda aadan magac ahaan uga mid ahayne aad macno ahaanna ula mid tahay waa in qarannimadaada aad ilaashataa waxaa jira expression ama hadal halkudheg ay adeegsadaan diblomaasiyiintu oo la yidhaahdo everyone, every state, in every state, you sit where you stand. kuraasta marka macnaheedu Soomaali tusaale maamahyo lamid ah jiro oo la yiraahdo lax waliba shilalkay isdhigtaa lagu qalaa ama qof walba meeshuu isdhigo ayuu joogaa marka adduunka maxaafisha sida qarannimadaadu ay u xooggan tahay ama ay u dhammaystiran tahay ayaa maxaa la yidhaahdaa ayaa tixgelinta lagu siinaya ay leedahay miiska marka la isugu yimaado madaxweynayaasha adduunka ama wasiirada arrimaha dibadda ama wasiirada kaleeto ama ra'iisul wasaarayaasha ama madaxda baarlamaanka ama xubnaha kaloo dal ka socda state ka socda shir kastoo ay tegayaan ama ambassadorada kuraas baa la isfariisiyaa kuraasta waxaa lagu fariisiyaa mararka qaarkood magac alfabet baa la isku fariisiyaa
mararka qaarkood waxaa la isku fariisiyaa waxa la yidhahdaa seniority haddii lasoo kala horumarinayo ama sida loo kala weyn yahay loo maaragtay maamulka loogu soo kala horreeyey laakiin inta badan dalku meesha uu ixtiraamka uu dunida ku leeyahay ayaa la fariisiyaa meel ku habboon marka waa muhiim in dadku ay arrimahaas ay gartaan marka waxaynu u gudbaynaa hadda dowladda Soomaaliya ama Somali state ma aha maamulka ama xukuumadda jirta ma aha maxaa yeelay maamulka iyo xukuumaddu wuu yimaadaa wuu tagaa laakiin dowladda Soomaaliya magaca Soomaaliya qofka Soomaaliga sharaftiisa qarannimadu wax kale maaha iyo magaciisu waa mid joogto ah waa mid ka dambeynaya dadka xubnaha ka ah muddada ay nool yihiin yani inagu waa dhimanaynaa laakiin Soomaaliya statekeeda haddaysan burburin oo inagu ilaalino way jiraysaa inta adduunku systemkaas ama nidaamkaa ku dhaqmayo xukuumad way imaanaysaa way tegaysaa laakiin magaca iyo sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed waa jiraysaa hadday leeyihiin dowlad qarannimo leh u qalanta magacooda maxaafisha adduunka marka xiriirka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya iyo xiriirka dunidu sidee buu yahay marka Soomaaliya sida aan soo sheegay haddii ay tabar daran tahay haddii aysan qarannimadeedu kala dhaawacan tahay oo aysan dalkeedii oo dhan ka talinin haddii aan dadkeedu iswaafaqsanayn haddii aan dadkeedu ahayn kuwo waxbartay kuwo caafimaad qaba kuwo dhaqaalo fiican leh kuwo horumar dalkiisu gaaray hadduusan lahayn adduunku wuxuu ku arkayaa si ka duwan sida qofka ama dalka intaasoo kaleeto ama dowladda intaasoo kaleeto leh marka Soomaaliya waxay soo martay dowladnimadeedu taariikho kala duwan lixdameeyadii waxaynu qaadanay xorriyadda waxaynu ahayn waxaa loo yiqiinay dalka keliya waxaynu ahayn dimuqraadiga Afrika dimuqraadiyadda iyadana waan jeclahay in macnaheeda la fahamsan yahay ama mar kale aynu ka hadli doonaa maanta mawduucana kuma jirin laakiin waxaa la yidhahdaa waa nidaamka ugu fiican ay maaragtay dowladdi leedahay ama isku maamusho oo noocyo kala duwan leeyahay marka lixdameeyadii waxaynu ahayn dalka keliya oo dimuqraadiyadda ugu fiican Afrika kale caasimaddeena xamar waxay ahayd waxaa loo yiqiinay the Pearl of Africa ama waxaa loo yiqiinay maxaa la yidhahdaa meesha Afrika ugu quruxda badnayd kabacdi way soo soconnay mar baynu lahayn maxaa la yidhahdaa sumcad dunida laynoo ka yaqaano shirar international ayaynu hoosgarayn jiray 1974 waxaynu martigelinay kulanka Afrika oo maaragtay waa mar kaliya aynu martigelinay kulanka Afrika lixdameeyadii waxaynu ka mid ahayn asaasayaashii ururka Afrika AU la dhihi jiray kabacdina AU noqday 2002 AU noqday isu bedelay waxaynu ka mid ahayn asaasayaashii ururka Islaamka oo 1900 iyo loo yaqaano ururka dalalka Islaamka oo 1967 markii Yuhuuddu Masjid al-Aqsa ay qabsatay maxaa la yidhahdaa la asaasay oo madaxweynaheenii waqtigaa jiray Allah u naxariistee aadan cadde lagu tilmaamo isaga iyo boqor Faysal dadkii lahaa fikraddii ururka lagu asaasay
jaamacadda carabta inkastoo inaga horreysay oo 1940 iyo shantii la aasaasay haddana waynu xubin baynu ka ahayd mar dambaynu soo gallay marka adduunka ururka la yiraahdo dalalka dhexdhexaadka berigaas waxaa jiray adduunku wuxuu qaybsanaa 2 qudbi waxaa socday dagaalkii qaboobaa wixii loo yiqiinay ama Cold War oo Soviet Union iyo Mareykanka ama Westigu ay maartay Warsaw iyo NATO iyo waxaas jiray marka waxaa jiray qolo dhexoo la dhaho non-alignment oo inuu qayb weyn ka ahay shirar adduunka baynu ka qayb geli jiray shirar adduunka ba Soomaaliya lagu qaban jiray qofka Soomaaliga ayna wuxuu lahaa ixtiraam baasaboorka Soomaaligana wuxuu lahaa ixtiraam Soomaali badan oo qaxootiina ma jiri jiray oo adduunka iska dhiibta marka waxaynu soo soconnaba dowladnimadii waa naga burburtay waxaynu adduunka uga caan baxnay sumcad xumo dagaal sokeeye dowladnimo la'aan burbur halaag abaar dhimasho caato foolxumo qaxooti argagaxisannimo maxaa la yidhahdaa piracy wax la yidhaahdo ama maxay ahayd burcad badeed waxaasoo dhan baynu ku caanbaxay marka qadarintii adduunka laynoo ka hayay way yaraanaysaa kabacdi waynu soo kabannay dowladnimadeennii dib baynu usoo dhisannay laakiin weli soomaalidii waa kala qaybsan tahay Somaliland waxay leedahay Soomaaliya gooni baan ka nahay gobol siyaasaddii Soomaaliya weli ma xasilin argagixisadii weli waa jirtaa oo maalin kasta qolyaha isqarxinaya weli caasimadeennii safaaradihii adduunka oo dhan sooma degi karaan dalalka adduunku ama shirkadaha adduunka ugu waaweyn investment dalkii kuma samayn karaan iyo maalgashi baasaboorkeennii adduunka qaar baan laga aqoonsanayn siyaasad maxaa la yidhaahdaa weli adduunku wuxuu ka shaqaynayaa oo inala garab taagan yahay in maxaa la yidhahdaa qarannimadeennii dowladnimadeennii inaynu taam ka dhigno inaynu dhammaystiranno welina waa maxaa la yidhahdaa waa hawl socota afrikaankii ciidamay inoo soo direen argixisada ina kala dagaalama iyo intii weli waa inala joogtaa oo waa ina kaalmaynaysaa innaga weli dowladnimadeennii maaragtay maxaa la yidhaahdaa xuduudyaheennii inagu ma hantiin dadkeenniina weli waa kala qaybsan yahay ugu yaraan siyaasad ahaan hadday dhaqan ahaan maaragtay isleeyihiin taasi waxay ka mid tahay marka aan hadda soo akhriyey caqabadaha haysta dowladnimada ama xiriirka caalamiga aynu la leenahay ilaa aynu dhammaystiranno xubnahaas qarannimadu ku dhammaystirmayso oo dadka dalkeenu uu amnigiisa inagoo aynu ka mas-uul noqonno maamulkiisa inagoo aynu ka mas-uul noqonno dadkeenu ay iswaafaqsan yihiin oo dowladnimadooda aaminsan yihiin maamulka iyagu maamulkoodana iyagu ay dhistaan oo iyagu iska leeyihiin oo maamul dimuqraadi ah oo iyagu dadku ka raali yahay legitimate uu jiro oo dalkoo dhan ka gees laga aqoonsan yahay oo sharci iyo nidaam inagu aynu dejisanay oo ku maaragtay maxaa la yidhahdaa ka mid ah xubnaha qarannimada oo inagu aynu ka raali nahay inagu qorannay aynu leenahay adduunku xiriirka adduunku la leenahay wuxuu noqonayaa mid ka hooseeya kan xubnaha kaleeto oo ama dowladaha kale oo dunida oo kaleeto boos lama fariisan karayno ama isku silayno ma tixgelinayo innaga iyo Djibouti
innaga iyo Ethiopia, innaga iyo Kenya, innaga iyo France, innaga iyo Mareykanka, iyadoo ay ahayd UN-ta in isku si laynoo tixgeliyo. waa anigeeda yiri qof waliba meeshuu fariisto, meeshuu istaago ayuu fariistaa, kursigu istaago ayuu fariistaa. hase ahaatee marka halkaa waa caqabadihii. caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah burburkiina ku dhacay oo aan ka soo kabanayno iyo magaxumadayna ka raacday. waxaa ka mid ah oo saameynaya xiriirka dunida aynu la leenahay awoodda dalkeena. dal awooddiis adduunka international ama xiriirka caalamiga waxaa lagu qiyaasaa laba arrimood oo weyn. waxaa la yidhaahdo hard power iyo soft power, ama awoodda xooggan iyo awoodda fudud. awoodda xooggan waxa weeye dalku inta baaxaddiisu dhan tahay, kheyraadka ku jira intay la eg tahay, dadka dalkaa ku nool tiradiisa, horumarka uu dalkaasi gaaray oo dhaqaale, GDP-giisu intuu la eg yahay, intuu warshada leeyahay, intuu dariiqyo iyo ayrabooro iyo magaalooyin iyo uu leeyahay, dadkiisu intay aqoon leeyihiin, intuu ciidamo leeyahay. waxyaabahaas waxaa la yidhahdaa hard powerka. marka waxyaabahaas laga fiiriyo dalalka adduunka ugu xoog badan waxaa ka mid ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska, Turkida, and so on. qayb labaadoo waxaa jirta awoodda dal lagu qiyaaso oo ah, dabcan waxaa ka mid oo kaleeto xasiloonida siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed ee dalku leeyahay. kuwaasi waxay ku jiraan waxa la yidhaahdo soft power, ama awoodda naacimka ama awoodda fudud, kaasoo ah dalal badan waxaa jira dunida ka mid ah oo aan lahayn hard powerka ama xooggooda, awooddooda xoog aysan u dhigmin kuwaas dalalka aan soo tiriyey, laakiin haddana adduunka aad looga qadariyo oo looga tixgeliyo awood badan ku leh. waxaa ka mid ah dalalka Scandinavian-ka, maxaa la yidhaahdaa Sweden, Denmark, Norway, ama Nordiga la isku yidhahdo, Finland ku dar, Iceland. waxaa ka mid ah dalalka sida Imaaraadka oo kaleeto iyo Qatar oo kaleeto. iyo inkastoo ay leeyihiin awood dhaqaale kuwan maxaa la yidhaahdaa Qatar iyo Imaaraadka iyo, laakiin dad badanna ma laha, dhul badanna ma laha. laakiin dhaqaalaha ay leeyihiin iyo diblomaasiyaddooda ayaa awood ku leeyihiin dunida. dalalka Scandinavian-ku iyagu siday u dhaqmaan, dadkooda ula dhaqmaan, heerka nolosha dadkooda, sida adduunka looga ixtiraamo qofka Swedishka ama qofka Norwayga. waxaa laga yaabaa dalalka adduunka oo dhan badankooda inaysan ku tegin visa, inaysan ku tegin dalalkaas dadkooda, maadaama la qadariyo, maadaama la ogyahay dadkooda inuusan isdhiibayn, inaan gaajo haysan, inay dadka adduunka ugu nolosha fiican yihiin, adduunka dadka ugu xagga waxbarashada ugu horeeya yihiin, xuquuqda haweenku meelaha ay ugu horumarsan tahay inay yihiin. marka inagu haddaynu Soomaali nahay, labadii awoodood midna ma lihin, ama wax yar baynu ka leenahay. waxyaabihii dhibaatooyinkii aan soo sheegay ayaa layna ku yaqaana. marka dhibaatooyinkaas si aan uga gudubno, waxaynu u baahan nahay oo xiriirka caalamiga aynu qayb ka qaadano, aynu macnaha ku yeelano booskii naturalka ahaan, booskii ahayd inaynu lahaano ama mar lahaan jiray. waxaynu u baahan nahay caqabadaha inaynu ka gudubno, caqabadahaasoo ah isqaqabsiga siyaasadeed, aqoon darrida dadkeena haysata, gaajada dadkeena haysata,
colaadaha jira, argixisada isqarxinaysa, ayaa ka mid ah, iyo inaynu dhisano mujtamac aqooneed oo idinku aad noqon kartaan yani xubnihii asaaska u ahaa. International xiriirka caalamiga ah waxaa loo adeegsadaa, waxaa ka mid ah waxa la yidhahda foreign policy ama siyaasadda arrimaha dibadda. dal siyaasaddiisa arrimaha dibaddu waxay reflection u tahay, waxay tusaale u tahay dalka xaqiiqadiisa. waxaa la yidhahdaa foreign policy is reflection of domestic policy, ama dalka guduhu siduu ka yahay. haddii dalku uusan gudaha ka caafimaad qabin, haddaan dowladnimadiisu ama ismaamulkiisu uusan ahayn mid cagaha ku taagan, mid dadku raalli ka wada yahay, mid dadkiisu aysan ahayn dad isjecel oo iswaafaqsan, dhaqaalihiisu fiican yihiin, nolosha dadku ay fiican tahay, dadka waxbarashadoodu ay heer sare tahay, haddaysan jirin la falgelidooda ama xiriirka caalamiga ahi wuxuu ahaanayaa mid tabar daran. xaaladda dalkeennu ku sugan yahay haddana sidaas wey. wasiir arrimo dibad baan ahaa, shirar baan ka qayb galaa, wasiirre ila midaan u tagaa, la kulmaa, aan iga aqoon badnayn, iga waaragnimo badnayn, laakiin laga yaabo dalkoodu inuu iga xaaladda dalkeennu ku sugan yahay uu ka duwan yahay. waxaa laga yaabaa dalalka qaarkood inay naga tabardaran yihiin, naga tira yar yihiin, dalkoodu naga yar yahay. laga yaabo dalkaasoo dhan inuu hal magaalo yahay, dadkoodu naga yar yihiin, laga yaabo inay dhowr boqol oo ku yihiin. haddana ay haystaan calaamadihii dowladnimo iyo qarannimo, taasoo xoojinaysa meesha ay dunida ay ka gelayaan. mararka qaarkood marka waan qajili jiray anigoo ah wasiirka arrimaha dibadda xaaladda dalkeennu yahay. wasaaradda ayaan ka shaqayn jiray, wasaaradda arrimaha dibadda. waxaan dareemayey baahida loo qabo wasaaradda inay ka shaqeeyaan dad leh aqoon badan, aqoon diblomaasiyadeed iyo culumta qaybaheeda kala duwan oo dhan. burburkiina ku dhacay daraaddeed waxay keentay dadkeennu in aqoonta uu u leeyahay arrimahaas hadda aan ka sheekaynayo ay tahay mid aan meeshii la rabay ahayn. marka innaga oo xaaladdaas ah lama tartami karayno, ama kaalinta aynu dunida ku leenahay ma qaadan karayno. adduunka international relationska marka, ama xiriirka caalamiga ah marka oo ah maado lagu barto jaamacadaha, waxaa dadka adduunka marka la qiyaasayo dowlad kasokow awooddeeda aan idiin sheegay, xiriirka dowladaha ka dhexeeya marka la qiyaasayo ama la cabirayo, theories kala duwan ama aragtiyo kala duwan ayaa la adeegsadaa. labaa ugu caansan. arday maadaamaad tihiin, qaarkiin laga yaabo inay culumta siyaasadda bartaan ama international relations inay ogaataan wey. mid ka midii waxaa la yidhahdaa political realism baa la yidhahdaa, realism. midna waxaa la yidhahdaa liberalism. si kooban, realism waxay qabtaa 4 qodob baa asaas u ah. waxay qabtaa dunida inay ka kooban tahay dowlado sovereign, sidaan idiin sheegay 193 dal. by the way, dalalka inay noqdaan dowlad helaan u rafanaya waxaa ka mid ah maaragtay waxa la yidhahda western sahara ama saxarada galbeed oo Algeria iyo Morocco ku muraysan yihiin. Morocco leedahay annaga naga mid tahay. marka waxaan usoo xusuustay qaybta markii Afrika iyagu waa laga aqoonsan yahay, laakiin UN-ta lagama aqoonsana. marka UN-ta haddaan laga aqoonsanayn,
dowlad ahaan ma jirtid marka waxay realism ama politic theory-gaas wuxuu aaminsan yahay dal ama dowlad adduunka waxaa ka taliya dowlado 193 dowladahaasi kulligood waa isgaadayaan ama adduunku waa anarchic waa adduun fawda dabeecadda bani aadamku waa fawda wuxuu ka imaanayaa aragti la yidhaahdo maaragtay maxaa la yidhaahdaa political realism oo waqti hore Greega ka soo bilaabatay nin la dhihi jiray Thucydides kabacdina John maxaa la yidhaahdaa Thomas Hobbes iyo Machiavelli iyo ay ka soo taliyeen kuwooda casriga ahna ay ka mid yihiin dad la yidhaahdo George Kennan iyo maxaa la yidhaahdaa Henry Kissinger iyo baa ka mid ah dadka fikraddaas aaminsan oo ku dhaqma Maraykanka xukuumaddii hadda degtay oo Trump iyo taageerayaashiisu fikirkoodu waa sidaas marka realism waxay leedahay adduunka dowlado unbaa ka taliya adduunku waa fawdo dowlad waliba waa inay danteeda waxa la yidhaahdo raison d'etat ama national interestiga dal inay dowlad waliba ilaashato si ay u ilaashatana dowlad waliba waxay isku daydaa inay xoog yeelato oo dalka kaleeta ka xoog badnaato kaas waa fikrad international relationska lagu qiyaaso dalalka sida dhaqankooda mid ka soo horjeeda baa jira oo la yidhaahdo liberalism oo aaminsan in bani aadamku uu wanaag jecel yahay adduunka bani aadamku uusan fawdo u dhalan uu iskaashigu fiican yahay ayna loona baahan yahay adduunku inuu maamulo iskaashi iyo nabad waxay horumariyaan dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka xukuumadda hadda marka mathalan Maraykanka ka jirto oo kaleeto iskuulkaas ayaa inform gareeya marka adduunku ama iskuulka ama fikradda ha qaba ama fikradda ha qabe kaalintaada waa la darsaya adigu marka waxaad u baahan tahay inaad ogaatid adduunku sida uu fakerayo xiriiradu sida u jiraan sida lagu xoojiyo maxaa la yidhaahdaa sumcadda dalkaaga iyo dadkaaga marka waxaan soo tilmaamay dowladnimada Soomaaliya dowladnimo waxay tahay iyo qarannimo waxay tahay dowladnimada Soomaaliya meeshaynu maanta qarannimadeenu joogto caqabadaha ina hortaagan fursadaha aynu haysano waxaa ka mid ah inaynu alxamdulillah aynu nahay qaran la aqoonsi inaynu qarannimadeeni leenahay habayna ka maxaa la yidhahdaa dhaawacnaatee in laynoo aqoonsan yahay dunida inaynu dad jira nahay aynu dowlad nahay oo weli aynu matalaad leenahay inaynu leenahay yani dhul iyo dad wanaagsan dhul khayraad leh meel fiican dunida kaga yaala dadkiisu markaysan iyagu isku mashquulsanayn ama ismaamulku uusan ka hadlaysnayn oysan iyagu isdagaalayn iscayrsanayn sumcad xumo iyagu isu keenayn dad firfircoon oo dunida meeshay tagaanba wax fiican ka qabta sumcad hore oo ay leeyihiin oo lagu qadariyana ay weli u jirto waa fursadaha caqabadahuna waa kuwaan soo sheegay innaga oo weli argagixiso dalkeeni wax yeelayso dowladnimadii oon weli inoo dhammaystirayn dadkeennii oo weli iskhilaafsan siyaasad iyo maaragtay wax kasta isku khilaafsan taasi waxay caqabad ku tahay xiriirka aynu dunida la leenahay waxaan ku gabagabeynayaa xiriirka caalamiga ah marka la qiimeynayo
ama dal markuu national interestigiisa iyo meeshuu dunida kaga jiro fiirinayo wuxuu fiiriyaa priorities ayuu samaystaa foreign policygiisa oo ah horta foreign policygaaga waa inay hagtaa in aad adduunka oo dhan aadan colaad ku lahayn wax kula dagaalsanaysan jirin oo adduunka oo dhan aad saaxiibba ku leedahay ama adduunka oo dhan aad saaxiib la tahay si maxaa yeelay foreign policy waxay u adeegtaa domestic policy waxay u adeegtaa domestic policyna waxay u adeegtaa ama foreign policy xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waxay u adeegtaa siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadda guduhuna waxay u adeegtaa iyo siyaasad kasta ummadda dhulkaa ku nool dantooda inay horumar fiican gaaraan inay caafimaad fiican helaan inay maxaa la yihahdaa nolol fiican helaan inay aqoon fiican helaan inay dhaqaale fiican helaan marka waxaas waxaad gaari kartaa haddii dalkaagu nabad kuu yahay dadkaagu iswaafaqsan yahay maamulkaagu kuu hagaagsan yahay adduunkana aad xiriir fiican la leedahay xiriir fiican lama yeelan karta adduunka haddaad colaad joogtaa gudaha iyo dibaddaba aad qayb ka tahay sidaa daraaddeed halkudhega fiican oo foreign policyga waxa weeye friends for all ama friends with all for none ama enemy for none qof kasta saaxiib baan la ahay qofna cadow lama ahi laakiin sidaa u haysid sidaa aad u gaartid marka waa inaad haddana adduunka xiriiradu ku kala duwan yahay dalalka deriska ah ayaa ugu horeeya waa in deriskaaga iyo adigu aad isku fiican tihiin aad isu nabad leediin adduunku hadda yani blocks baa jira yurub waa iyadaa isu imaanaysa mar isdagaali jirtay america waxaa jira wax la yihahdo isbahaysiga north america oo maraykanka iyo canada iyo mexico ka kooban iyagaa dadka iska xiga khaliijka waa maqashaan dalal khaliij la yidhaahdaa jira africa 5 qaybood bay u qaybsan tahay oo west africa south africa qaybaha yani dalalka west africa waa isku qayb ECOWAS baa la yihahdaa dalalka south africa ama koonfurta africa dalalka ah ma aha dalka koonfurta africa la yihahdo laakiin dalalka koonfurta africa ka midka ah iyagana SADC baa la isku yidhaahdaa dalalka afrikada dhexe waxay wada leeyihiin urur afrikada waqooyi waxay wada leeyihiin urur afrikada geeska afrikana waxay leeyihiin urur la yidhaahdo IGAD ururkaas ayaynu qayb ka nahay ururkaas caafimaadkiisu wuxuu ku xiran yahay iyo iskaashigiisa iyo horumarkiisa dalalka xubnaha ka say isula shaqeeyaan adiguna xubin firfircoon oo hoggaan leh baad ka mid noqonaysaa haddii gudahana aad ka ladan tahay ka caafimaad qabtid siyaasadda guduhu kuwa caafimaad qabto dadkaagu kuwa caafimaad qabo caqli iyo jirba adduunkana waxaa ka jira aad og tahay marka intii Soomaaliya marka fursadahaas oo dhan bay haysataa regionkani waa region aad u fiican Afrika oo dhan ayaa hadda isu imaanaysa waxaynu mar dhow qayb ka ahayn wax ka saxiixnay isu furaanshaha Afrika oo dhan waxaa la rajaynayaa mar dhow Afrika qofka Afrikaan ah inuu dal kastoo Afrikaan ah uu tegi karo isagoon visa u baahnayn hadda Afrika qaarkeed way gaareen heerkaas West Africa ama dalalka ECOWAS la isku yiraahdo oo 16 dal iyo 15 oo mid yihiin Nigeria ugu weyn tahay uma baahnid inaad baasaboor qaadato Senegal baa ka tegi kartaa Nigeria tegi kartaa Sierra Leone tegi kartaa maaragtay maxaa la yiraahdaa tegi kartaa Ghana tegi kartaa Cote d'Ivoire ama Ivory Coast adiga oo aan baasaboor wadan ka rabtaa ka shaqayn kartaa ka rabtaa tegi kartaa adoo dalkaagii iyo dowladnimadaadiina iska leh dalalka koonfurta Afrika iyaguna waa gaaray dalalka bartamaha Afrika oo colaado hareeyeen iyo geeska Afrika iyo waqooyiga Afrika iyagu wali heerka ma gaarin Afrika oo dhan marka waxay u socotaa hadda heerka in la gaaro oo qofka Afrikaanka ah uu ka shaqaysan karo sida Soomaalida hadda ku dhiban iyagoo aad uga shaqaysta South Africa ama Zambia ama Tanzania ama Kenya ama waxay noqonayaan inay si xor ah aan qofna deganaansho u weydiin ee uga shaqaystaan
ugu noolaadaan ugu socdaalaan marka mustaqbalkaas quruxda badan oo dalalka qaarkood gaareen oo Yurub gaartay oo North America gaartay si aynu u gaaro waxaynu u baahannahay inaynaan culays ku ahaanin dunida aynu ka ahaano qaybtaynu ka ahaanaynana wuxuu ka bilaamayaa sidaynu dowladnimadeenna aynu maaragtay waxaa laynoo ka baahan yahay inaynu dowladnimo iyo qarannimo fiican aynu leenahay aynu ogaano waxaa arrimahaas budhigo u ah dadka aqoontooda ah mahmaha baa jirta ingiriisi oo tiraahda he who much is given much is expected qofkii wax badan ilaahay siiyo wax badan ayaa laga fisha haddaad arday tahay dhalinyaraha caafimaad qaba aad tahay waxaa lagaa filanayaa wax badan xoogga kugu jira waxaa lagaa filanayaa inaad qofka weyn aad kaalmeynaysid adaa ile ka xoog badane haddaad cilmi leedahay inaad cilmigaad leedahay mid diineed iyo mid dunyawiba inaad dadka wax ugu anfacdid oo aad kaalmaysid oo aad maaragtay dadka waxa wanaagsan aad ku hagaajisid ilaa aqoon gaaraad leedahay oo kuu sheegaysa kuu tilmaamaysa dariiqa saxa ama dadka noloshooda ku hagaagi karto adduun iyo aakhiraba waxaan rajaynayaa inaad noqotaan dhalinyaradii sidaas ku fekerta oo aan hoos fiirin kor iyo horaba fiiriya oo markaas ka shaqeeya mustaqbalkooda iyo mustaqbalka dadkooda caawa intaasaan ku gabagabaynaya kusoo koobaya hadalka oo waqti badan qaadan karay oo mawaadiic dhowr aynu isku daynay inaynu ku kabargarayno si aynu isula fahamno dowladnimada Soomaaliya meeshay joogto xiriirkaynu dunida la leenahay sida uu yahay caqabadaha jira fursadaha jira iyo waxa laynoo ka baahan yahay arday ahaan inaynu samayno si aynu taariikhda dad baa sameeya ummadaha sameeye si aynu u noqono kuwo taariikh fiican u sameeya dalkeena dadkeena iyo dowladnimadeena adduunkana sumcad iyo sharaf ku leh iyo xiriir wanaagsan waa mahadsantihiin